السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وناسن daawadayaal idilkiina meel walba joogtaan iyo walba inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu weynaa suuqa saaka aadka loo hadalhayo inkastoo dhammaan ciyaarihii la ciyaarayay ay aad u xiran yihiin balse waxaa jira markaan warar suuqa xan ah inay jirto waxaana cudurka halista badan ee coronavirus uu saameeyay ciyaaristii kubadda cagta laakiin wararka ugu weynaa suuqa ayaana eegi doonaa oo xanta ah majalada lagu magacaabo BBC-da dhanka iyo gosobka ama wararka ugu weyn xanta ee maanta magacyada ugu dhowr ama magacyada waaweyn ee ku xusan waxaa kamid ah Pierre-Emerick Aubameyang, Haaland, Mane, Mkhitaryan, Xavi Hernandez iyo Hetien ayaana kamid ah. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa aad u xiiseynaysa ciyaaryahanka Arsenal weerarka ugu ciyaara ee Pierre-Emerick Aubameyang 30 jirkan u dhashay dalka Gabon ayayna wax ka dhiganaysaa bartilmaameed kale inkastoo bartilmaameed koowaad ay ka dhiganayso dhankii weerarka xidigaha kale Haaland oo Borussia Dortmund ah ciyaarahan Sadio Mane oo Liverpool ah laakiin haddii ku fashilantay labadan ciyaaryahan waxay doonaysaa xidiga reer Gabon inay soo qaadato in ay ku soo biiriso gagadeeda Santiago Bernabeu waxaa sheekadan daawacaysa maanta Express سلامة ريال مدريد waxay rabtaa in la soo saacato ciyaarahanka kulansan jirka u dhashay dalka Brazil qadka dhex nagu ciyaara Igor Gomes kaasoo 45 milyan lagu qiimeynayo São Paulo ayuu u ciyaaraa kooxda São Paulo oo ka dhisan dalka Brazil AS oo dalka Spanish ka soo baxa ayaana sheekadaasi qoraysa Manchester United ayaa markaan aad u xiiseynaysa ciyaarahanka Burnley qadka dhex ugu ciyaara Robin Barrian iyo ciyaarahan kale ee Xavi Hernandez kuwaas oo kamid ah ciyaartooyda ugu fiican labadaas ciyaar midkood ayay rabtaa in garoonka Trafford Moor ay ka soo qaadato xil ciyaareedka Newcastle Croatian ayana sheekadaasi daawacaysa Arsenal ciyaaraankii hore qadka dhexe imanka amaahda ugu maqan ee Henry Mkhitaryan ayaa lagu soo waramay inay dib u soo cesho doonto Roma ayuu iminka ka tirsan yahay Romana waxay damacsan tahay in heshiiska joogtada ay kala siicatay ciyaaraanka reer Armenia balse Mikel Arteta ayaa fahansan in ciyaaraankan uu ku wanaagsan dib ugu soo laabto gegada Fly Emirates meel ayaana sheekadaasi daawacaysa ciyaaryahankii hore kooxda Barcelona ee dalka Spanish la jantiga ama haliyeyga ah Xavi Hernandez ayaa markaan diyaar u inuu macallin u noqdo kooxda La Liga ka ciyaartay ee Barcelona maadaama imika macallin u yahay kooxda Qatar ee Al Sadd ayuu macallin u yahay Barcelona ayaana markaan damacsan in ciyaaryahankeedii hore ee macallin ka dhigto waxaana sheekadan daawacaysa Elvorian ee ka soo dalka Spanish-ka Aston Villa ciyaaryahankeeda ee goolka u qabtay Toby Hetien ayaa markaan lagu soo waray inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Burnley sheekadan waxaa qalin ku qaadatay majalada Independent ayana sheekadaas qalinka u qaadatay waxay kuwaasi ahaayeen wararka ugu weynaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maanta oo Isniin ah aad loo hadalhayay